السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دwow channelka dulucda filimada maanta waxaan idin wadaa muuqaal aad u xiiso badan oo intiina badan ay ka faa'iidi doonto waxyaabo badan oo aydan ogeyn haddaba intaynan u gudagelin muuqaalka waxaad iga codsanayaa inaad channelka subscribe iyo like aad saartaan aynu gudagalno muuqaalka nin dhawaan qaatay diinta islaamka isaga iyo faamilkiisa idaacad loo kala ku taala dalka Faransiiska ayaa waxay weydiisay sababta ka dambeysay inay muslimaan wuxuu yiri waan jecelahay inaan idin la wadaago qisadan sanadii 1993 aniga iyo xaaskayga waxaan dalxiis u tagnay dalka Tuqriga waxaan nimid meel tuulo ah kolkaas ayaan arkay oday waayeel ah oo gurigiisa jooga waxaan ku dhahay adeer hotel halkan ma laga heli karaa wuxuu igu yiri hotel halkan kama dhawaa ee waa habeen madowwe kaale gurigayga caawa seexda baritoolana iska sii wata safarkiina waxaan isku raacnay xagga iyo gurigiisa markii aan xaafadda nime waxaan aragnay qol mugdi ah oo ay joogto 5 caruura iyo sidoo kale 2 qof oo waayeel ah wuxuu noo keenay casho fudud waana wada cashaynay kadib wuxuu igu yiri halkan iska seexda adiga iyo xaaskaaga aniga iyo reerkayguna qolka kale ayaan seexanaynaa halkii ayaan habeenkii seexanay markii uu waagi dilaacay ayaan isdhahay bal odaygii uu soo mahadceli iskana sii wata safarkiina waxaan raadiyay odaygii kadib waxaan arkay isaga iyo ehelkiisii oon halka maqnayn oo geed meeshan ah hoos seexday waxaa dhacaya qabow daran xaaskayga runtii markay aragtay xaaladda aad ayay u oyday kolkaas ayaan ku yidhi xaaskaygii waa ka dhaqanka islaamka ee ma ahan kuwa warbaahinta reer galbeedku ka faafinayaan ee dhaqan xumada ah odaygii ayaan u tegey waxaana weydiiyey sida ugu fudud ee ku baran karo diinta islaamka wuxuu ii dhiibay kitaab qur'aan ah oo ku turjuma luqadda Ingiriiska waxaan baranayay 2 bilood waana ku qancay wixii intaasi ka dambeeyayna waxaan qiray kelmadda tawxiidka waanaan muslimiin aniga iyo dhammaan qoyskaygii alxamdulillah waxaan ballan ku qaaday in aan diinta islaamka sii faafiyo hadda waxaa gacantayda ku soo islaamtay wax ka badan 1000 qofood wiilkaygu waxa uu dalka Romania ku leeyahay xarunta ugu weyn ee daraasaadka islaamka halkii mar waxaa lagu islaamiyaa kumanaan qofood waxaa looga yimaadaa daafaha caalamka waad aragtaa walaal wadada ugu fudud ee lagu faafin karo diinteena waa dhaqan wanaagga waa mid ugu saameynta badan marka laga eego wadooyinka kale xigmadda qisadani waxa ay tahay hal dhaqan oo wanaagsan oo ah inuu odaygii martidiisa karaameeyay imise ajar ayuu ku helay sababna uu u noqday inay ummadda faraha badan sababtiisa ku soo islaamaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iiday waxyaabo badan oo aanad ogeyn muuqaalkan aad ku cajab geliyay waanaad ku mahadsantahay sida quruxda badan ee noola socotay